raggan xukunka dilka lagu fuliyo oo lagu kala magacaabo Farxaan Maxamed Samatar Cabdinaasir Dhaqane Xasan iyo Abshir Maxamed Xaaji Buul ayaa lagu eedeeyay inay ka dambeeyeen weerar khasaare badan geystay oo ka dhacay hotel Naasa Hablood 2 ee magaalada Muqdisho 28 Oktoobar sanadkii 2017 xeer ilaaliyaha guud ee maxkamadda ciidamada qalabka sida gaashaanle sare Cabdullaahi Buula Kamey ayaa warbaahinta u akhriyay xukunka dilka taariikhdu markay ahayd 22 bishii shanaad 2018 waxaa maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida u fariisatay dacwad ciqaabeedkii loo haystay eedeysanayaal Farxaan Maxamed Samatar 22 jir ah ina Safiye Maxamed ku dhashay Galguduud Cabdinaasir Dhaqane Xasan 19 jir ah ina Xabiibo Maxamuud ku dhashay Gedo Abshir Maxamed Xaaji Buule 22 jir ah ina Xabiibo Maxamed ku dhashay Saakow kuwaas oo xafiiska xiraalinta ciidamada qalabka sida ku soo eedeeyay dambiyada kala ah ka mid noqosho urur hubaysan oo lid ku awoodaha qaran dumis iyo in ay ka mid ahaayeen koox weerar argagixiso ku qaaday hotel Naasa Hablood 2 taariikhdu markay ahayd 28 bishii 2017 weerarkaas oo sababay khasaare naf iyo maal ah waxaana ku geeriyooday weerarka inta la hubiyay 18 ruux iyadoo ay ku dhaawacmeen 47 ruux oo kale taariikhdu markay 30 bishii shanaad 2018 waxay maxkamadda ciidamada qalabka sida ku xukuntay dil toogasho ah oo ah qisaastii dadkii ku geeriyooday weerarkii Naasa Hablood 2 taariikhdu markay 28 bishii 10 2017 maanta oo ay taariikhdu tahay 10 bishii 7 2019 waxaa lagu fuliyay xukunkii dilka ah ee maxkamadda ciidamada qalabka sida xabsiyada magaalada Muqdisho ayay ku xiran yihiin dad badan oo ku eedeysan fal dambiyeedyo amniga lid ku ah oo qaar kood ay maxkamadooyintoodu socoto Shamsa Cabdiraxmaan Maxamed wararka TV-ga STN magaalada Muqdisho